السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo madasha sigesti. waxaan maanta martiin ugu ah Mr. Cali Daacuun oo kaga jira magaalada Masqat ee wadanka Cumaan. Cali Daacuun kusoo dhawow madasha sigesti. aad iyo aad baan ugu soo dhawahay. xilliguna waa xilli dambe annaga waxay noo tahay 2:15 habeenimo ayay noo tahay. idinka ayaan idin qaadi waayay. waa kusoo dhawahay waadna salaamantiin dhammaantiin madasha sigesti iyo waxa ay dhegeysanayaan. waad mahadsan tahay. waxaynu guda gelaynaa marka wareysigeeni maanta Cali oo Soomaaliya guud ahaan waxaan doonaynaa si kooban inaad noo faranto arrimihii doorashada meesha ay wax marayaan koronkiina buuxsamay xildhibaanadii madaxweynihii baa hadlay guddigii doorashada Puntland waraaqay soo saartay laba soo koobaya guud ahaan waxyaabihii ugu dambeeyay February 2016 waa sanadkan aynu ku jirro ayaan sheegay inaan August doorasho dhacayn maxaa yeelay iima muuqanayn sasaanteedii. waxaan kaloo marnay waraystay aan ku sheegay mar haddii baarlamaanku awoodiisii uu ku wareejiyey wax la yidhaahdo madasha ma sahlana inay doorasho ka dhacdo Soomaaliya. tiibaa ilaahay aniga hadda ii rumeeyey iminkana u malayn maayo January ka hore ma February in doorasho ay dhacayso. waxaasina waxaa lagu tilmaami karaa abuse electionkii baa la abuse gareeyey oo meel lagaga dhacay. waxaana sabab u ah nimankii la baxay madasha. adigu Soomaaliya caawa inuu madaxweyne ka jiro ma qabo, ra'iisul wasaare inuu ka jiro ma qabo, baarlamaan inuu ka jiro ma qabo. maxaa yeelay mandate bay lahaayeenoo mandatekoodii waa dhammaaday. doorashadana waa adigaa arka 100,000 iyo 200 milyan bay maraysaa. inta haddii allaba kuu rooyahay waxa cadaala ka socda, waxa jawhar ka socda, waxa meel walba ka socda, wax haddii allaba kuu rooya loo adkaysan karaayana maaha. waxaasi waxay dhali doonaan hal booliyo nidig xalaala ma dhasho. markaa dhibaatooyinkaasaa ka jira koonfur mana qabo inay doorasho dhowdahay. aad baad umahadsan tahay. waxaynu guda gelaynaa Caliyow su-aalihii waa maxay waxa ugu weyn ee hortaagan in doorashadu ay dhamaystiranto adiga ogaalkaaga ama xildhibaanadii lasoo dhamaystiro oo madaxweyne la doorto kolba 15 cashiye bil dib loogu sii dhigaya? personal interest baa jira nimanka madasha ku bahoobay ee barasaabada ah ee madaxweyneyaasha sheeganaya iyo Xasan Sheikh iyo ra'iisul wasaaraha. intaas ayaa adeer dana kala gaara leh oo ku cayaaraya dalka kuna xidhan dawlado ajnabi ah oo marba wax u yeedhinaya. taas ayaa keentay inaan electionka daacad laga noqon. Cumar Degay ninka la yiraahdo haddii inuu damiir ku jirto gudoomiyaha doorashada dadba weeye inuu iscasilaabay ahayd. maxaa yeelay 5 goor buu mudeeyay uu yiri doorasho dhacaysa. doorashada ma aanay dhacin. galabta wuxuu soo saaray communique ama sawir murtiyeed ma uu cadeen waqtiga ay dhacayso. marka laga yimaado governorada Soomaalida iyo madaxdan aad tilmaantay ee jiray personal interest bay leeyihiin beesha caalamka ee dhaqaalaha ugu badan bixisa sida la ogyahay inay gacanta ku haysa dalka. waa maxay iyaga roolkoodu kaalintoodu maxay tahay? adeer beeshaas anigu horaan u sheegayo waa beesha lixaad baa la yiraahdayo habaar bay qabtaa. imaaraadka waa lagu shiriyey. Ethiopia marba nin bay u yeedhaysaa. Maraykanku 2 warqadood oo kulul buu soo saaray. haddii allaba kuu rooyahayay meel uma wada jeedaan. Soomaaliya sidii loo dumin lahaa heshiis bay ku ahaayeen 1991 laakiin maanta danahoodii bay midayn kari laayihiin. markaa beesha lixaad baa ilaahay inagu salliday. kuwa aan wadaniyiin ahayna ilaahay way nagu salliday. Cabdiweli Cali Gaaso waqtigu u saamaxay oo uu ka dhigay wasiir ninkii la oran jiray Farmaajo. dabadeedna prime minister noqday. dabadeedna hoos isu casilay oo bana saab noqday. Axmed Madoobe oo bana saab ah. Shariif Xasan oo bana saab ah. bal waxa ilaahay Cabdikariim Xuseen Guuleed oo bana saab ah. bal ilaahay wuxuu inagu salliday eega waxa weeye ummadan ummad fiican ahayn. mar haddaanay fiicnayna ilaahay wuxuu ku sallidayaa wixii halaagooda iyo hoogooda ka shaqayn lahaa. waad mahadsan tahay Cali oo halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa madasha 60 oo aalaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaalida. maantana waxaa martiin uga Cali Daacuun oo
khadka telefoonka kaga jira magaalada Masqat ee waddanka Cumaan. Cali su'aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye erkeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaalidu maalin saddexaad warqad buu soo saaray odhanaysa 15 bisha 12aad maalin ma dhaafi karto doorashadu. adna waxaad ka sanqarisay February iyo January ka hor inaan doorasho dhici doonin. seebaad ka ogaatay xilliga ay doorashadu gaarayso Cali ahaan? adeer anaa uga waroon, Obama anaa uga waroon, Ingiriiska anaa uga waroon, Jarmalka anaa uga waroon, anuu waddankaygii yahay siyaasina anigaa u ah. ma dhacayso. hadday dhacdo siyaasadaba waan ka baxayaa. ergeyga gaarka ahi isaga ayaa dhibaatada wada, isaga ayay ahayd intuu xasan sheekh ka qabto inuu amisom u dhiibo, amisomna ay electionka diyaar garayso. isaga weeye waxa fidmada iyo dhibaatada wada. laakiin la arki doona haddii 15 December la qabto murashaxnimadii, waxaan idinku ballan qaadayaa dadka ay dhageysanayo inaan siyaasadda ka baxay. waxa ugu weyn aad adeegsanaysaa markaa si aan tixraac u helno xildhibaanadii baan xilligaa soo diyaar garoweyn baad ka wadaa, ma arrimo kale oo miiska hoostiisa ka socdo adigu aad og tahay oo aad nala sheer garanayn baa jira. waa maxay tixraaca arrintani? no comment ayaan kaga jawaabayaa. no comment af ingiriisiga waa taqaaniin. waa si wacan baan u fahnay Cali waad mahadsan tahay. su-aasha kale aan ku weydiinaya waa mid personal adiga kuwa Cali waxaan ogaan xilliyadii kumeel gaadhadii la soo dooranayay sida xilliga Cartay Magaati iyo xilliyada caynkaas oo kala Cali isagoo baasha dhex fadhiya halkay ka socoto oo ku dagaalamo weliba xilliyada baarlamaanka la dooranayo oo bararka qaarkood dabaqay iska soo halgaada. iminkana Masqat baad ka soo hadlaysaa xulashadii xildhibaanadana gudihii bay ka socdaan. maxaa Cali ka macniyay sanadkan? adigu isu sheeg Cali Daacun meesha uu ka maqan yahay sababtuu uga maqan yahay. inaan election diyaar ahayn baan ogahay. sidaa awgeed ayaan uga maqnahay. si wacan baan arrintaa u fahanay overall arrimaha koonfurta ka socda Soomaaliya iyo dawladda federaalka inaan election dhacaynin. haddii aynu dhinacan kale u guurno Cali adiguna aad ka soo jeedaa sarxan ee waqooyiga dhawaan wada hadallo Khaatumo iyo Somaliland iyaguna kolba meel iska kaaya tusay oo aad sabab ay ugu dambeysay. maxaad warkaysaa iyada arrinta? niyo aniga arrintaa waqti badan baa igaga lumay. xuduudihii British Somaliland protectorate in la soo xidho waa aan aad iyo aad baan u doonayay. midida daabkeeda waxaa haya beesha dhexe ee la yiraahdo Isaaq. madaxweynuhuna waa Axmed Maxamed Siilaayo. juhdi badan baa igaga lumay. isaguna waxa uu afkiisa ka soo saaray Khaatumo waanu aqoonsanay. arrintaana ilaa la dhameeyo xilka ka degi maayo. lagis wax la yiraahdo ama sakaraamad wax la yiraahdo ama sharaf wax la yiraahdo inaan ka tegayaa. kulankii hore waa kuwii Addis Ababa isku arkay 17 loo ballamay. dhinaca Somaliland baa dib u riixday oo tiri 27 ha laga dhigo. 27kiina waa taasoo waa suurtoobi weyday. dhowr waraaqood baa ka yimi Etoobiyaanka. Khaatumana waa loo diray, Somalilandna waa loo diray. sidaad wax u rabtaan idinkoo wada dhan ayaanu doonaynaa. calaa kulli xaal hadda waxaa igu maqaalaa bisha 3 December ayaa la isugu tegayaa meesha la yiraahdo Addis Ababa. wuxuuna waxa weeye waxa la isku hayaa waa mabaadi iyo principle weeye. laakiin ilaahay mahadi weeye hadday Somaliland Khaatumo aqoonsatay. khaatumona hadday Somaliland aqoonsatay iyaduna waa ilaahay mahadi. waxa hadhay waxa weeye sidee baynu wax u wada leenahay, sidee baynu wax u wada yeelanaa. madaxweynaha Khaatumo xagla toosiye ma aha. hadba nin iska soo gelayo baxaya ma aha. wax rasmi leh oo adag oo ay dadkani wada leeyihiin inuu isna dhigo oo taariikhda kaga taga ayuu doonayaa. sida aan ka warqabo maalintii la soo galay dalka Somaliland 25 sano u dhamaaday. maalinba 10 oday baa soo gelayay. 2 cruiser iyo 200 oo kun baa la siinayay. waa sii socdeen. arrintaas oo inay dhamaato ayaan jeclahay haddaan ahay Cali Maxamed Axmed Cali Daacun. waxaana aan ku rajaynayaa inay dhammaan doonto. maxaa yeelay labadii oday ee ugu waaweynaaye ruuqcadaaga ahaabaa isarkay. Silaayana wuu ballan qaaday inaanu kursigaa ka tegin ilaa hawshaas ay dhamaato. intaa waanu garanay. wada hadallada aad sidii imikana waxaa loo mudayay December 3 iyo Addis Ababa.
horena uga dhacay aynooge waa maxay arkaanta ugu waaweyn ee wadahadalladu tiirarkay ku taagan yihiin yani bidhiya labadaad nooga taabato qodobada ugu waaweyn oo laga wada hadlaya maxay de waa mabaadi weeye maxaynu wada leenahay waa mabaadi waa principle weeye waa maxaa inaga dhaxeeya oo aynu wadaagnaa oo aynu leenahay madaxweynuhu waa isaaq ra-iisul baarlamaanku waa isaaq maxkamadu waa isaaq cali oo ay ku jirtay khaatumana somaliland bay aqoonsatay somalilandna khaatumay aqoonsatay iyo maxaa inaga dhaxaynaya sidee bay isu dabamarsan yihiin labadaasi haddii la waxa weeye horta khaatuma waa jabhad nimana kanina waxay sheegteen dawlad jabhad iyo dawlad siday u wada hadli jirtay waa la yaqaanaa waa macruuf meel bay wada tegi jireen meeshaasay ku wada hadli jireen heshiis bay ku geli jireen da markhaati baa laga noqon jiray soo subul waa intaa weeye waxaanu aragnay mararka wada hadallada ay bilaamayaan ama imikaba wargeysyada qaarkood ay qorayaan in wufuuddii xagga khaatumo la magacaabay oo rag culculus la magacaabay oo waxa weeye the international figures maantii horena ragga ka qayb galay sawirada ragga aanu ka aragnay dad jabhad lagu tilmaami karo may ahayn imikana waa adiga le madaxweynaha khaatumo iyo silaanyo aqoonsaday iyo arrinka iyo waa jabhad sidee bay arrinkaasi isaga laftiisu uu isu qabanayaa calow adeer jabhaddu miyaanay aqoon-yahano lahayn ilaahay ha u naxariistay SNM markaan kuu soo qaado ina meeyaag samatar yaa ka aqoon badnaa duqsi yaa ka aqoon badnaa cabdiraxmaan axmed cali yaa ka aqoon badnaa raggii ragga ahaayee dawladdii maxamed siyaad barre administrationkeeda dejiyey oo shiilaanyahani ka mid yahay maxay ahaayeen markii dambena jabhad bay noqdeen oo SNM bay noqdeen si wacan baan u garanay labadaa garab waa fahanay oo khaatumo iyo somaliland oo is aqoonsaday imikana heshiisku asay wax wada yeelan lahaayeen oo principals ka wada hadlaya cali xaggee buu kaga jira arrinka isagu caliga hadlaya imika adiga anigu waxa aan kaga jiraa xuduuddii british somaliland ahayd in la soo xidho british somaliland protectorate ummadda laascaanood iyo laasqore degan dani uguma jirto puntland baanu nahay somaliland baanu nahay xamar baanu nahay maamul samaysan mayno dadkaa dani uguma jirto hadday dadkaasi tashanayaanna puntland ha raaceen hadday tashanayaan somaliland ha raaceen hadday maamul samaysanayaan maamul ha samaysteen laakiin waxaan ifiya aakhira midna aan jirin ee midna ku sheeganayo kuraastaadii uu qorayo cabdiweli cali gaas midna uu ku leeyahay war waxba inaga dhexeeye aan wada hadalno anigu waxa aan soo dhaweeyey in xuduuddii la soo xidho isaaqna kuraasta ay ku fadhiyaan ay ka daadegaan oo ay gartaan dalkan in lala leeyahay adigo ma waxaad advocate garaynaysaa maanta in waddanka la kala gooyo oo British Somaliland iyo Italian Somaliland loo kala gooyo sidaa miya hadalkaaga midho soo bixis walaaleer aniga dee go-idiga ma aadan maqline adaan kaa maqlayaa go-ida walaalo adaan kaa maqlaya 3 jeer xuduudda la soo xidho macnaheedu waxaan u qaadanay waa la go-aya sidaa miya xuduudda xagee loo xidhay go-ayna cali maya dee haddaada waaye xuduuddii aadan xidhayn xuduudda kale maad haddaba u gudubtid maad xuduudda Ethiopia u gudubtid way wuxuun jiraanin British Somaliland protectorate gaalku xuduud buu inaga tegay dhulbahanta heshiis lama uu qaadan dadka xeebaha degan buu heshiiska la galay dhulbahanta occupation buu ahaa mardan buu Somaliland noqday waxa weeye aniga dibta iga hadlisiinaysaa waxa weeye puntland baanahay waan gartay somaliland baanahay waan gartay waan sii socdaa waan gartay waan soo socdaa ma maxay waxaasi ma wax arrin bini aadam ku dhaqmi karaaba waa inay nimana kani waa inay midoobaan markay midoobaanna waxaa iftiimi doona siyaasado kale oo hadda aan idin muuqan si wanaagsan baan u garanay cali waad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa madasha sigistiga oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaalida waxaan maanta martiin ugu ah Cali Maxamed Axmed oo loo yaqaan Cali Daacuun oo khadka telefoonka kaga jira magaalada Masqad ee wadanka Cumaan cali hadda su'aal kale ku weydiiyo koonfurtii baan u noqday Cabdiweli Maxamed Cali gaas dhowr jeer ka sanqarisay wuxuu madaxweyne ka yahay Puntland election baa garow lagu qabanayay arrintu qabaa'il bay ku socotay waxay ku qotontay qodobkii 4.5 ka la oranayay
waa maxay dhaliilahan aad leedahay dadkaasaa ilaahay gacanta inoo geliy wax qayla oo kasoo yeedhaysana ama qabaa'ilka ha ahaato marka individualis laga reebo farakutirsi ma jiraan waa maxay dhaliilahan waaweyn ee soomaalida aad ugu dardaarwarinaysaa u leedahay dadka caynkaasaa ilaahay gacanta inoo geliy adeer meesha haddii khayr ku jiro cali daacuun baa tegi lahaa anigoo turkiga joogaan sheegay nimana kani maxay shirka uga maqan yihiin baad weydiiseen aqalka sare kuraas dheeraada bay ku raadsanayaan taydii bay noqoto waa kuwa kuraas dheeraada ku qaatay laba dhulbahantaa la siiyey midna waxaa la siiyey kuwa laasqori degane agoonta ah ee maxamuud cali shire ka dhintay haddii ilaahay kuu rooyahaye waxa weeye waxa aniga ii muuqday wixii ii muuqday ayaa hadeerna ii muuqda hadday meeshu barako badan leedahay anaa tegi lahaa okay waxaynu kusii dhownahay marka barnaamijka gabagabadiisii cali daacuun nimankan murashaxiinta ah imika oo ay ugu horeeyaan kuwii dawladda hayay weli ismail casilna waanu ognahay kuwii kale ee dibadda ka joogay dawladda sida ninkii la oran jiray farmaajo iyo cabdiweli sheekh iyo jibriil in la yidhaahdo iyo qaar kale oo aan magacyadooda way shiiqeen waxa keliya imika tartanka ku jira waa madaxweynihii ra-iisul wasaarihii imaaraadkaa la leeyahay waa mid wata ku kale waxaa wataa la leeyahay etoobiyaanka turkigaa mid la socda mid kale maraykanka arrinkan maxaad kala socotaa murashaxiinta iyo arrinkan adeer waxaa ka bax nimanka daarood waa fulayaal weeye fulay inay gudaha galaan bay ahayd inay ololaha bilaabaan bay ahayd sheekh shariif sheekh axmed xamed buu tegayaa dubay waa ka guuray uganduu joogaa caawa xamar buu gelayaa murashaxiinta kalena inay xamar galaan weeye inay ninka ku qabsadaan weeye inay midoobaan weeye in washamsi waduxaaha lagu akriyo weeye xasan inay meesha ka qaadaan weeye laakiin waxaan u malaynayaa sida cali daacuun u arkay inayana u arkayaanoo ay leeyihiin faanoole fari kama qodna laakiin waxaan kuugu ballan qaadayaa inuu weegan sheekh shariif gelayaa kuugu ballan qaaday okay si wacan baan u garanay isaga laftigu sheeksanya kulan baa jiray imaaraadka lagu qabtay couple weeks ago adigu 2-3 week ka hor waxaa la isugu yeedhay guddoomiyeyaashan gobolada ama nimankan aad ku sheegtay barasaabada ee maamul goboleedyada horjoogaha waa madaxweynuhuna ma iman arrinkaas markii ay kasoo rogmadeenna war siyaasadeed ahaayo arrinkaa ka yara horjeeda ayaa madaxweynuhu ka sanqadhay kulankaa maxaa looga gol lahaa yaa qabtay ma madaxweynahana lagu matixaaminayay murashaxnimadiisa ma cid gaara baa loogu ololeynayay kulankaasi muxuu ahaa waxaan toonsanahay xilligaa inaad adiguna meesha joogtay adeer anigu waataan ku yidhi beesha lixaad weeye dawladahani beesha lixaad weeye danay leeyihiin nimankan malaha waxay weydiiyeen hebel baanu wadanaaye hebel dee nala qaada malaa'ina cabdirashiidka iyo waxbaa la sheegayaa isaguna dee qaadmi kari maayo sababtu waxa weeye marxaladda hadda xamar ka jirta ma aha marxalad haddii allaba ku riyay caadi ah way isku khilaafeen dabadeedna way iska tageen ina cabdirashiid waa shiiqay kuwa kalena murashaxiin ma ahayn sheekh shariif sheekh axmed ninka la yidhaahdo wuxuu ka baxay imaaraad already uganduu sii marayaa idinku ha degdeginina nin walowba waa inaad fahamtaa maxaa cali daacuun xamar caawa u joogi waayey waxaan caawa xamar u joogi waayey arrintu ma dhowa faanoone fari kama qodna dadka cali oo qaar baa waxay aaminsan yihiin doorashooyinka kolba dib loo riixayo ilaa February baa la isugu geynayaa qoladan la magac baxday Somaliland iyaguna sanadka dambe horaantiisa ay leeyihiin doorashooyin waa la isla qooranayaa baasha qaar baa sida aaminsan adigu sida ma tuhunsan tahay no comment iyadana no comment waxa soo socda calooshayda kala ma bixi kartid no comment gabagabadii barnaamijka ayaynu cali ku soo dhownahay waxa maanta martina ugu akhiyaray cali maxamed axmed loo yaqaan cali daacuun oo siyaasi Soomaaliyeed oo house u jira halkaad nagala socotaana waa madasha 60 kooxaha lagu falanqeeyo siyaasiyiinta Soomaaliya su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya cali meeshan muqdisho la yiraahdo ololahan ugu badan ee ka socda xasan sheekh maxamuud wey goboladana markaad eegto dhinaca Jubbaland iyo dhinacan Puntland iyo waxa ka socda Cumar Cabdirashiid dadka qaar baa waxay leeyihiin Cumar Cabdirashiid wuxuu ololeynayaa laftiisa si dadban xasan sheekh maxamuud qaarna waxay leeyihiin maya waa musharax beeshan adigu aad kasoo jeedo imika carabaabaysay saad u aragtaa ololahan Cumar Cabdirashiid madax banaan oo isagoo madaxweynenimo ku raadsanayaba mise waa ku dadka qaar siday sheegayaan xasan loogu ololeynayo
brime minister buu rabaa brime minister habar iisho haddii ay soo baxdo brime minister buu ka rabaa qof kasta oo daarood oo dibadda jooga iyo gudahana run baan u sheegayaa madaxweyne daarood xamar ka heli maayo intay sida tan tahay intay caasimadda muqdisho tahay 33 kursi ee beesha shanaad ee adaniska ah intaasoo dhan marka la isu geeyo adeer nimanka hawiye codka siinayaan xildhibaanada soo baxa sababtu waxa weeye naftooda ay nabadgelyo u doonayaan inay shaqaystaan way doonayaan marka marxaladda aynu ku jiro ee waaqiciga ah ayaa waxay dhigaysaa inaan niman hawiye ahayn aanu meesha ka soo bixin aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cali maxamed axmed cali oo gabagabadii barnaamijka ayaynu joognaa waxaan doonayaa ku siiyo fursad aad kula hadasho dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan ee ku dhageysan doona boqolaalka imika line-ka ku jira sida live-ka iyo kuwa ka dhageysan doona meediyahaba waa maxay fariinta aad doonayso si kooban inaad u gudbiso caawa waxaan gaarsiinayaa ma jirto sababtu waxa weeye wataciyaha udunaha waaciya dhegihii ilaahay waaniyaa waansan dadkani waa lumeen dadkani wadaniyad waa ka tageen dadkani qabiil bay u ambabaxeen waa ka 3,800,000 iyo 600,000 la diraayo America iyo Ingiriis laga diraayo hebelow xildhibaan ku soo baxla leeyahay abaarta socod taagan waad aragtaan biyalaanta taagan waad aragtaan fariin aan caawa khayr qabta oo aan u dirayaa ma jirtee waxaan leeyahay tashada haddaa tashaweydana waa laydin talin aad baad u mahadsantahay kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa cali maxamed axmed oo loo yaqaan cali daacun faqadka telefoonka kaga jiray magaalada Masqad ee wadanka Cumaan halkaad wali nagala socotaana waa madasha 60ka oo araba lagu falanqeeyo siyaasadda Soomaalida kulan kan lamida inta aynu dib u kulmi doono inta ka horeysa waa aniga Farxaan Axmed Nuur oo idin le sida iyo nabadgelyo